xukuumadda Somaliland ayaa gurmad balaaran oo biyo-dhaamin ka bilowday gobolka Buuhoodle iyo deegaanada hoos yimaada oo xilligan ay ka jiraan abaaro iyo biyo la'aan baahsan. halkan waa deegaanka Balballacalanle waxaa maanta la gaarsiiyay gurmad balaaran oo biyo-dhaamin waxaana bulshada deegaanku halkan si weyn ugu mahad celiyeen xukuumadda Somaliland gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Buuhoodle Nasteex Maxamed Cabdille iyo xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buuhoodle oo horkacayo maayarka xogeenka degmada Buuhoodle Mustafa Cabdi Ayaanle oo isagoo halkan ka hadlay ugu horeyntii oo mahad celiyay barasaabka gobolka Buuhoodle iyo xukuumadda Somaliland oo iyagu ka soo jawaabay baahi biyo la'aanteed ee ka tagnay deegaanadan. Oqaashi waxgaradka deegaankaas ayaa iyana halkan ka hadlay waxaanu deeq biyo ah oo xukuumadda Somaliland ugu deeqday gobolka Buuhoodle soo gaarsiinay degmada Balballacalanle oo ka kooban 5 booyadood iyadoo uu soo wakiishay barasaabka gobolka Buuhoodle Nasteex Maxamed Cabdille. waxaan anigoo ah gudoomiye ku-xigeenkii golaha deegaanka degmada Buuhoodle deeq biyo soo gaarsiiyay ku wareejiyay odayaasha iyo gudida Balballacalanle sida deeqdii biyaha ahayd ee xukuumaddu ugu soo deeqday gobolka Buuhoodle oo dhan sidaas ayaan ugu soo wareejinay horta degmada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi abaaraha lagula dagaalamayo oo biyadhaan iyo raashin baa laakiin iminka deegaanka Buuhoodle waxa ka bilaabmay gobolka Buuhoodle waxa ka bilaabmay biyadhaan wuu ugu horeeyay waxay soo gaareen Balballacalanle oo 5 booyadood ka kooban odayaashii iyo deegaankiina waa kuwan maanta bilownay biyadhaankii koowaad ee xaaladda abaarta ayaan maanta wajigii koowaad maanta aanu bilownay. waxaan ku sugnay degmadii Balballacalanle ku wareejinay 5 booyadood booyadahaas oo ah biyadhaankii gobolka Buuhoodle oo gudoomiyuhu noo soo wakiishay annaguna aanu ku wareejinay deegaanka Buuhoodle deegaanka Balballacalanle. aad iyo aad baan soo dheelaynaa waxaan uga rajaynaynaa inuu xaaladda abaarta aan ka bareynay inuu xaaladda abaarta inoo kor qaado. ilaahay uun baa wax weeye inaga kor qaadi kara. idinkana waxaan leeyahay si wacan waxa weeyaan waa wajigii koowaad una socon doonaa insha Allah haddii Alla ka dhigo. noo yimi golihii deegaanka ee Buuhoodle ayaa noo yimi barasaabkii Buuhoodle biyo noo keenay dowladda Somaliland buu noogu keenay. annaka waxaana soo gaaray haddaan nahay tuulada Balballacalanle 5 booyadood. waxaanu Somaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland buu sheegaynaa Muuse Bixi Cabdi waxaa bilaabmay abaar baa ka jirta dalka waana dee naf iyo maalba dadka way haysataa iyo mudana madaxweyne dee wixii la qaban karaa waxa la qabto shacabka loo qabto haday biyo tahay haday baa tahay haday xagga tahay daawada. halkan aanu joognaa waxa weeye deegaanka Balballacalanle iyadoo ay maanta soo gaadhay horaanteedii deeq biyood oo naga soo gaadhay barasaabka gobolka Buuhoodle oo ay wadaan xildhibaanadii gobolka laga soo doortay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda Somaliland baanu arrinka ugu mahadnaqaynaa. waxaan ugu mahadnaqaynaa barasaabka gobolka Buuhoodle Nasteex. waxaan ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadana soo gaarsiiyay dadaalkooda nagu soo gaarsiiyay oo dhan baanu mahadnaqaynaa. waxaanu leenahay meesha waxa weeye waa horta waa bilowgii ilaahay deeqdiisa lagu dhargaayo ilaahay deeqdiisa baynu rajaynaynaa laakiin waxaanu doonaynaa in dadaal dheeraada aad iyo aad xukuumadda Somaliland oo dhammi ay dadaal dheeraada samayso. halkan aanu joogno waa Balballacalanle odayaasha Balballacalanle iyo gudida baanu ka mid nahay. eelka waxaa nala ku keenay 5 booyadood oo biyo ah golihii deegaanka iyo gudoomiyaha Buuhoodle soo gaarsiiyey. halkan baanu kaga gudoonnay. eelka abaar adag baa ka jirta biyo iyo baadba leh. golaha deegaanka iyo Buuhoodle iyo madaxdaba waa u mahadnaqaynaa. waxaanu idiin sheegaynaa haddaad tahay madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi waxaa loo baahayay burmad adag baa magaalada looga baahayay abaar 3 jir haysata. وعلى عثمان اسماعيل دكتور ورقة هذه تلفزيون SBC Buuhoodle.